بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي وعنا ونسندا وديال صاحب يال ملك سو joogtaan ba kusoo dhawaada Daljir Media. magacaygu waa Maxamed Xasan Maxamuud Tadheere. qodobada maanta aan idin hayo waxaan kusoo koobi doonaa laba qodob oo aad u muhiim ah idagoo anagoo la socona in xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya aad u kacsan tahay markaasina ay marayso meel xasaasi ah xilli doorashana marka lagu jiro oo foodal si saarayo inkastoo aysan muuqanin saansaan loogu diyaar garoobay arrimaha doorashada ee Soomaaliya. qodobka labaad waxaan isku dul taagi doonaa maqnaashada ama afduubka walaalkeen ama adeerkay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo magaalada Nairobi lagu afduubtay maalintii saddexaadna maqan maanta. aan ku bilaabay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed waxa uu ahaa falanqeeye arrimaha geeska Afrika oo arrimaha siyaasadda waliba la xiriira aadna u falanqeeya aadna markaa uga soo muuqan jiray warbaahinta guud ahaanba caalamka gaar ahaan kuwa Kenya haddii noqon lahayd TV-yada localka haddii noqon lahayd idaacadaha aad waxa uga soo hadli jiray qaybta Soomaaliya markay timaado warbaahinta VOA-da iyo BBC-da oo caan ku ahaa falanqeynta arrimaha geeska Afrika si gaar ah waxa uu markaa u falanqeyn jiray arrimaha Soomaalida. dhawaan waxa uu safar ku tagay magaalada Muqdisho oo shirar iyo seminaaro iyo tababaro uu ku soo qabtay isaga iyo aqoon-yahano kale oo markaa Soomaaliyeed. halka sartu ka quruntay oo laga maagay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed sida ilo xoggaala oo qoyskiisa hoose oo la xiriiray ay sheegan waxa ay tahay maalmihii u dambeeyay in uu markaa si toos ah uga hadli jiray arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya si gaar ah maxaa la yiraahdaa u falanqeyn jiray arrimaha siyaasadda. haddii aad fiirisid bartiisa Twitter-ka maalmihii ugu dambeeyay waxa uu soo qori jiray aragtidiisa la xiriirta siyaasadda Soomaaliya iyo sida ay isu bedeshay wuxuuna talooyin siin jiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo markaa ku tilmaami jiray ama uu siin jiray fikradihiisa ku aadan sida isagu wax u arko sida ay la tahay. wuxuu sidoo kale ka hadli jiray arrimaha kiiska badda oo ay isku haystaan Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxeeya muranka ka dhaxeeya oo falanqeyn jiray ismarkaasina fikradihiisa uu kala wadaagi jiray warbaahinta Kenya qaarkood ayuu markaa fikradihiisa kala wadaagi jiray maxaa la yiraahdaa wax saameynana kama soo gaarin waayo waxaa jiray sharci xadidaya qofka falanqeeyaha ama siyaasiga ama wariyaha ah sharci waxaa jiray xadidaya gudaha dalka Kenya ka jira oo tilaabooyinka qaar ama xuduudaha qaar uusan ka tilaabi karin laakiin within xayndaabkaas gudihiisa uu sida uu doono ama fikirkiisa sida ay tahay asaga uu kula falanqeyn karay. halka laga galay marka waxa ay ahayd in maxaa la yiraahdaa markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya lagu marti qaaday dalka Kenya ismarkaasina uu la kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxaa soo baxay warar sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu markaa u gacan galay dhinaca Kenya ismarkaasina uu fikradiisii bedelay fikirkii Kenyana markaa uu qaatay isaga iyo siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed ma aha ra'iisul wasaaraha oo kaliya. arrinta Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed aad buu u falanqeeyay maxaa la yiraahdaa fikradihiisa ku aadan ayuuna soo bandhigi jiray. ma aha qofkii ugu horeysay oo Nairobi laga afduubo gudaheeda dad fara badan oo ka horeysay kasii horeeyay la afduubay waxaa la socoteen keeskii gabadhii maxaa la yiraahdaa loo afduubtay madax furashada la weydiisanayay kadibna nasiib wanaag la soo furtay balse maalnimadii arbacada ahayd ayaa Professor Cabdiwahaab la afduubay ilaa iyo maanta oo sabti ah waa uu maqan yahay. qoyskiisa waxay la xiriireen guud ahaan baarlamaanka ammaanka waxay la xiriireen ururka SUPKEM loo yaqaano oo Supreme Council of Muslim Kenya loo yaqaano waxay la xiriireen ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka Kenya waxay la xiriireen sidoo kale masaajidka ugu weyn ee Jamia Mosque la yiraahdo oo markaa galaangal ku leh siyaasiyiinta dalka Kenya ka jira waxay sidoo kale la xiriireen xogayaha ama isku duwaha sirdoonka ee dalka Kenya ama George Kinoti loo yaqaano oo masaajidka ugu weyn ee Kenya imaamkiisu iyo waliba guddiga imaam masaajidku ay la kulmeen wuxuuna ballan qaaday in uu markaa kiiska daba geli doono balse halkaas harta ka qorsoon tahay ama tuhunka jira waxa uu yahay in arrintan ay lug ku leeyihiin kooxda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ilaa hadda war xaqiiqo ah ma hayno balse waxa wararka soo baxay ay sheegayaan ama ilo ku dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha oo aan la xiriirin waxa ay sheegeen in arrintan markaas uusan ka marnayn xafiiska ra'iisul wasaaraha sababtoo ah waxa uu aad u dhaliili jiray arrimaha qaab siyaasadeedka ra'iisul wasaaraha uu wuxuu wado muddooyinka ugu dambeeyay Twitter ugu dambeeyay soo qoray Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed wuxuu ahaa in ra'iisul wasaaruhu uu dhaartay uusan tixgelinin in ra'iisul wasaaruhu maxaa la yiraahdaa magacaabay Bashir Goobe oo Bashir Goobena uu yahay xubin ka tirsaneed ururkii TPLF ismarkaasna fikradda TPLF ee ka socon waayay Ethiopia gudaheeda loo soo raray dalka Soomaaliya
يا دليل نوعاasa طبعا marka uu xogta noocaasa professorku ku soo qorayay twitterkiisa waxa jirta xog amaba source amaba meel uu warka ka soo xiganayay ayaa jirtay xog uu hay'ayana jirta iskama soo qorayn warka qaarkood haddii arrimaha Soomaaliya uu falanqeeya professor Abdi Shacab Samed loogu xiray ama loogu afduubtay gudaha Kenya waxa arrimaha Soomaaliya falanqeeya siyaasiyiin waaweyn oo Kenya degan Farax Macalin ayaa kamid ah Haman Manyora ayaa kamid ah ninka loo yaqaano oo maxaa la yiraahdaa professor isaguna ah siyaasiyiin fara badan ayaa arrimaha Soomaaliya falanqeysa oo aad uga hadasha loomana xiro loomana afduubin laakiin maxaa la leeyahay arrintan waxay salka ku haysaa twitterada uu soo qoray ee ku saabsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxaa jira clip baraha bulshada dhex wareegayay maxaa la yiraahdaa oo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu markaa ku sheegay inuu isagu madaxweyne yahay qofka duubay clipka ayaa waxa ku leeyahay prime minister markaas wuxuu leeyahay president ma yahay prime minister marka waxay cadeyn u tahay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isagu marka uu isu maleeyaa inuu wadanka madaxweyne ka yahay balse waa dood maalin kale furnaan doonta maalinteedana falanqeyn doona haddii Allah uu dirgalo marka professor Abdi Shacab Samed waxaan rajaynaynaa in isagoo nabad qaba familkiisu ku soo laaban doono haddii Allah uu dirgalaado waan u duceynaynaa in maxaa la yiraahdaa isagoo nabad ah Ilaahay soo celiyo qoyska iyo ehelka wali dadaal ay wadaan waana la dadaalayaa haddii Allah uu dirgalaado meesha halka saldhigasana wala heli doonaa balse waxaa xusid mudan in qoysku ay wacad ku mareynaysa arrinta ka nasan doonin talaabo kasta oo muhiimana ay qaadi doonaan si ay u heli lahaayeen marka u nimaado arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee marka sii qurmaysa ama sii xumaanaysa waxaad ogtihiin xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha labada isbuuc u dambeysay waxaa ka dhaxeeyay khilaaf aad u baan ra'iisul wasaarihiina waxa uu cadeystay oo si toos ah u cadeystay inuu ku biiray mucaaradka kadib markii uu magacaabay wasiirka amniga ninkii ugu aflagaadada badnaa uguna mucaaradada badnaa madaxweyne Farmaajo ismarkaasina aad u aflagaadan jiray waliba qabiilka madaxweyne Farmaajo kusoo jeedo marka qaarkood aad u aflagaadan jiray ayuu waxa uu magacaabay wasiirka amniga taa waxay ku tusinaysaa marka in ra'iisul wasaaruhu uusan markaa dhexdhexaad ahayn dhexdhexaadnimadina uu lumiyay ismarkaasina uu ku biiray mucaaradka afkii mucaaradkana uu ku hadlay danihii mucaaradkana uu fulinayo sidoo kale qofka aan laga filanaynin inuu marna dhexdhexaadnimada lumin doono waxa kamid ah wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Cadaala oo isaguna cadeysay markan inuu isna mucaaradka ku biiray oo si rasmiyana danahoodii uu fulinayo in cadde waad arkayseen oo baraha bulshada muuqaal uu soo duubay aad loo wareejinayay hanjabaya oo la ciidamadii badbaadada qaran ay ugu magac dareen laakiin burburinta qaranka loo yaqaano oo inay dib u soo laaban doonaan in magaalada Muqdisho imaan doonaan in Farmaajo uusan Muqdisho kusii jiri doonin in fila Soomaaliya uusan sii joogi doonin hanjabaado qabiili ah Cali Yare Cali oo inta badan lagu yaqaan wararka dhexdhexaadnimada iyo mowqifka adag iyo maxaa la yiraahdaa hal adayga waxa bartiisa Twitter Facebook ku soo qoray in maxaa la yiraahdaa ceeb ku tahay beesha muusadigan ama beesha hawiyaba ay ceeb ku tahay in ay hal shakhsi maxaa la yiraahdaa oo waliba xidid la ah sida dalka uu dhigay Muqdisho gudaheeda ay maxaa la yiraahdaa maamul ku xagtaan oo ay nasibadiis ku xagtaan qabiilkiis ku xagtaan dabcan fikirkiisa ayuu ka hadlayay ma ahayn official capacity-giisa ma ahayn waxay ahayd shakhsiyadiisa waxa uu ku hadlayay dabcan qofka fikirkiisuna xor ayuu u yahay fikirkiisa qofka gaarka iyo shaqadiisuna laba ay kala noqon kartaa xogta hoose marka aan rabin in la wadaago waxay tahay ilaa habeen hore ilaa shalay ilaa xalay ilaa maanta gelinkeedii hore waxaa socday dadaalo ay wadeen labada madaxweyne maamul goboleed Cabdicasiis Laftagareen iyo Cabdi maxaa la yiraahdaa iyo Qorqor oo iyagu marka looga bartay inay arrimaha siyaasadda dhexdhexaad marba ka noqdaan khilaafaad walba oo yimaada ay xaliyaan arrintan sidoo kale waxaa kamid ah ama gadaal ka soo riixayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya iyo siyaasiyiin fara badan oo arrintahan doorashooyinka iyo khilaafaadka iyagu dhexdhexaad inta badan uga muuqda dadaalada ay wadeen labada madaxweyne ee Qorqor iyo Laftagareen waxay u tageen madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa waxay u tageen taliyaha kumeelgaarka Nisa waxay la kulmeen taliyaha booliska Xijaar waxay la kulmeen taliyaha ciidamada xoogga dalka maxaa la yiraahdaa Odawa Yuusuf Raage markay dhinacan ra'iisul wasaaraha dhinaca madaxweynaha ay xogtoodii ka urursadeen ballanqaadna la galeen dhexdhexaadina ay ka soo ogolaadeen waxay u soo wareegeen dhinaca ra'iisul wasaaraha oo xalay gelinkii hore iyo ra'iisul wasaaraha u yimaadeen ra'iisul wasaaraha qodobadii oo la yimaadeen intaba waa ku gacan saaray haddii noqon lahayd magacaabistii taliyaha uu isagu maxaa la yiraahdaa magacaabay haddii ay noqon lahayd wasiirka amniga uu isagu magacaabay haddii ay noqon lahayd arrimihii doorashooyinka qodobadii dhammaa ay labada madaxweyne ula tageen ra'iisul wasaaraha intiba uu kusoo gacan saaray waana uu soo diiday xilligan idila hadlayo Qorqor iyo Laftagareen waxay isku dayayaan inay approach kala sameeyaan ama dhinac kale ka soo galaan arrinta oo dhinaca beesha caalamka kooxda C6+ oo
marar badan aan idin sharaxay iyo labada madaxweyne ayaa la qorsheyn inay arkaan galabta ama caawa gelinka hore si arrintan ay dhinac kale uga soo approach gareeyaan, dhinac kale ay uga soo wajahaan. laakiin waxaa moodaa wasaaruhu inuu isagu go-aankiisa qaatay ismarkaasina uu ugu talagalay in arrimuhu ay sii qasnaadaan halkoodana sii taagnaadaan. labada xafiis oo aan la kala xiriiray, gaar ahaan xafiiska madaxweynaha ila ku dhow oo la xiriir, waxay xaqiijiyeen in madaxweyne Farmaajo wax kasta oo xal lagu heli karo ama la isugu soo dhawaan karo waana uu diyaar u yahay, ismarkaasina talaabo walbaba uu qaadayo. wixii ay talo u yimaadeen labada madaxweyne iyo waliba siyaasiyiinta kalena oo intoodaba sida ay ula yimaadeen u fuliyay, laakiin waxa wax ka socon la yihiin ama halka wax ka socon la yihiin ay tahay dhinaca ra'iisul wasaaraha, dhinaca xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ilaa hadda aan arrimaha socda ka soo jawaabin. waan ka warsugi doonaa, waana rajaynaynaa in ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa uu dabacsanaan uu muujin doono, sidii uu ballan qaadayna uu noqon doono qof u dhexeeya siyaasiyiinta is haysta. isagu waxa uu sheegay inuusan musharax ahayn, uusan kursi siyaasadeed u soconin, haddana waxaa muuqata inuu fulinayo danihii mucaaradka. waxaa la isweydiinayaa ama siyaasiyiinta qaarkood ama dadka siyaasadda falanqeeya isbarbardhigeen kiiska Iran Tahliil muxuu kaga duwan yahay kiiskii Qalbi Dhagax, muxuu kaga duwan yahay kiiskii Cabaas Siraaji, muxuu kaga duwan yahay kiiskii wiilkii lagu dilay maxaa la yidhahdaa Galmudug, muxuu kaga duwan yahay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee maalmoba dhimanaysa, muxuu kaga duwan yahay kiiskii Iran Tahliil. dabcan waa su-aasha isweydiinta mud ilaahi hadda qof kasta oo Soomaaliya maskaxdiisa ka guuxaysa, ra'iisul wasaaraha muxuu kiiskan u buunbuuninayaa ama xafiiska ra'iisul wasaaraha maxaa kiiskan looga buunbuuninayaa oo ilaa hadda looga dhigayaa wax weyn oo loogu colaadinaya madaxweyne Farmaajo, sida in madaxweyne Farmaajo isagu amarka uu bixiyay oo kale. dabcan afhayeenkii madaxweynaha ma ihi, laakiin waxaan istusinayaa ama falanqeynayaa wixii maskaxdeeda ay tusto oo ah maxaa kiiskan ka duway kiisaska hore muwaadiniinta Soomaaliya lagu waxyeeleynaya. ilaa hadda ma muuqato sabab rasmi ah oo maxaa la yidhahdaa ama caddeyn rasmi ah oo kiiska Iran Tahliil ka dhigaysa kiis maxaa la yidhahdaa extraordinary ama wax ka baxsan xadka oo kale ah. marka waanta ay wadeen qorqor iyo lafta galeen ilaa hadda kamay quusanin, waalow ay xafiiska ra'iisul wasaaraha kasoo quusteen, haddana waxay isku dayeen dhinaca kale inay kasoo wajahaan oo dhinaca beesha caalamka ah. waan ka warsugi doonaa maanta gelinka dambe ilaa caawa gelinka hore ayaa la filaya in kulan dhex maro iyaga iyo beesha caalamka, gaar ahaan kooxda C6+. dhinaca baarlamaanka Soomaaliya weli iyagu waxay wadaan dadaaladoodii. warqadda uu soo qoray gudoomiye Mursal oo aad dhammaan wada aragteen waxa ay caddeyn u ahayd ama ay tusinaysay sida bareerka ah ee ra'iisul wasaaruhu u jebiyey qodobada Suuriya, in wasiir la magacaabo haddana wasiir kale uu dhaariyo. dabcan adduunka ama xeerka adduunka meel kaga taal ma laha, turka Soomaaliyana meel kaga taal ma jirto in inta wasiir la magacaabo haddana wasiir kale uu dhaariyo. dabcan siyaasaddu waxa ay u baahan tahay waxa la yidhahdo check and balance, in la wada falanqeeyo oo laba dhinac la wada fiiriyo oo maxaa la yidhahdaa la wada qorsheeyo. marka haddii isla adigii aad inta ismagacaabo haddana isla adigii aad isdhaarisid, dabcan waxay la tahay dabcan dastuurka Soomaaliya ay balmarsan tahay. waan ka warsugi doonaa halka ay sal dhigato. ilaa hadda xafiiska ra'iisul wasaaraha dabacsanaan kama muuqato, dhinaca xafiiska madaxweynahaas waxaa ka muuqata dabacsanaan fara badan sida wararka hoose aan ku helay ii sheegayaan. waxaan isha ku hayaa kulanka guddiga dhexaadinta madaxweyne Sheekh Shariif iyo Cali Maxamed Geedi iyo qorqor iyo lafta gareen ay la yeelan doonaan beesha caalamka, gaar ahaan kooxda C6+. ayaan ka warsugi doonaa haddii Allah wada ogolaado. wixii kusoo kordhana si toos ama live ayaan uga daawan doontaan pageka Facebook-ga. haddii aad nagu cusubtaa fadlan pageka follow sar, YouTube-kana like ama share iyo subscribe isugu dar. aad baa u mahadsan tahay, waa kaga mahad celinayna waqtigaaga. inta ayaa maanta kusoo ameeraya tan iyo kulan dambe waxaan igaga tegaya sida iyo nabadgelyo. nabadgelyo nolol kulanta iyo amaan Allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.